Maalin maalmaha ka mid ah dameer ayaa yidhi, cawska midabkiisa waa buluug. Shabeelkii oo yaaban ayaa si degdeg ah u jawaabay, maya, cawska waa cagaar. Doodii ayaa kululaatay, dameerkiina waxa uu ku adkaystay cawska waa buluug. Shabeelkana asigana wuxuu ku adkaystay fikirkiisa. Wuxuuna dhahay aan u tagno libaaxa boqorka kaynta, asaga ayaana kala xukumayay. Labadooduba waxay u tageen libaaxii. Ka hor inta aan shabeelka hadlin, dameerkii ayaa soo booday. Wuxuu dhahay, boqorow, ma run baa in cawska yahay buluug? Libaaxii ayaa eegay dameerkii, wuxuuna dhahay, haddii aad aaminsan tahay inuu buluug yahay, haddaba cawska waa buluug. Dameerkii intuu farxay, wuxuu dhahay, arrintaasi shabeel ayaa igu diidan. Boqorow, fadlan ninkan ciqaab. Shabeelkii waxaa lagu xukumay 5 sano oo aamusnaan ah. Dameerkii farxad ayuu la boodbooday, waan saxanahay, cawska midabkiisa waa buluug, waan saxanahay, cawska midabkiisa waa buluug. Shabeelkii oo yaaban ayaa dhahay, boqorow, maxaad ii ciqaabtay? Cawska waa cagaar, taas ma been baa? Libaaxii wuxuu dhahay, haa, cawska waa cagaar, laakiin arrinta lagugu haysto waxay tahay, adigoo xigmad leh, sababta ula doodayso dameer waa maxay? Waxaad iila timid doqonnimo, mashquulna waad igu furtay. Qaladka ugu weyn ee noloshaada waa in aad la doodo qof aan rabin inuu xaqiiqda ogaado. Dulucda sheekada waxay tahay in aadan doqonka la doodin waqtigaadana ku dhimanin.